السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال مر لباد كسو دواada barnaamijkeeni baro cilmi nafsiga xalqadiisa labaad. xalqadeena waxaan kaga wada hadli doonaa psychology-gu sidoo u soo saara fikradan kala duwan ee maanta caalamka lagu isticmaalo. marka hore hadaynu isla eegno gooliska psychology-ga ama ahdaafta psychology-gu shan ayaa loo qaybiyaa. ta ugu horeyso ah observing, in marka hore habdhaqanka la eego ama habdhaqanka qofka la daawado. kadib markaynu habdhaqankii qofka daawano waxay noogu xigtaa inaynu habdhaqankiisii qeexno ama aynu describe garayno. qofku habdhaqankan uu sameynaya waa maxay, ma aggressive ba, ma antisocial ba, habdhaqankan qofku uu sameynaya inaynu qeexno aynu describe garayno. ta saddexaad waxa weeyaan explanation ama explaining, in qofka behaviorkiisii ama habdhaqankiisii aynu sharxi karayno. kadib waxaynu sameynaa waa prediction ama saadaalin oo goolka afraad inoo noqon doona. waxaynu saadaalinaa waxa weeyaan qofka habdhaqankiisii. ta ugu dambaysa ee shanaad ee gooliska psychology aynu ka leenahay waxa weeyaan control, qofka habdhaqankiisii inaynu controli karayno aynu bedelin karayno. shanta hadaba waxaa lagu soo koobay shanta gool ee psychology-gu uu ka leeyahay dadka ama psychology-gu uu uga dan leeyahay dadka. waxaynu soo sheegnay in psychology-gu uu yahay scientific method xalqadeenii hore. scientific method ama scientific research hadaba markaynu soo koobno waa in saddex laga helaa. in question iyo theory, aragti iyo su-aal waa inuu yeeshaa researchkaagu. waa inaad su-aal soo bandhigtaa, aragtina aad leedahay. su-aashan iyo aragtidan ayaanu ka dhigaynaa hadhow markaa testable measures ama ashyaa la cabiri karayo. kadib waxaynu sameynaa hypothesis waxa loo yaqaano oo ah saadaalin ama resultigii ama jawaabihii kasoo bixi lahaa researchka markaynu sameyno ayaanu sii saadaalinayna. kadib ta saddexaad oo ah replicate the experiment, shaygan aynu qabanay ama researchkan aynu qabanay, experimentkan aynu qabanay inaynu dib loo qaban karayo. oo haddaynu odhano iminka coffeegu ama bunku dadka wuxuu u saamaxaa inay si fudud u fikiri karayaan ama wuxuu ka dhigaa smart markay imtixaanka gelayaan ka hor in hadday cabaan. waa in aynu haddaynu dadkii laga qaaday experimentka aynu bedelno inaynu same result ka helno ama environmentkeenu kaga qaadnay hadaynu bedelno in iyada laftigeedu ay resultigii inoo soo baxay ay inoo soo saarto. kadib waxaan odhanaa markaa researchkaasi wuxuu leeyahay replication wanaagsan ama researchka waa la replicate garayn karaya. inta haddaynu kasoo gudubno types of research methods ayaa jira ama noocyo research methods oo loo isticmaalo psychology-ga ayaa jira. ta koobaad waxaa la yidhahdaa case study oo ah micnaheedu in qof kaliya un la barto. talabaad waxaa loo yaqaanaa naturalistic observation oo ah in dadka lagu observe gareeyo ama lagu daawado iyagoo meeshoodii ama environmentkoogii naturalka ahaa ku jira. sida dad shaqeynaya haddaan doonaya maanta inaan behaviorkooga barto ama habdhaqankooga aan barto iyagoo shaqadooda si naturaliya ugu jira ayaan daawanaya ama observe garanaya anigoo markaa notice ama qoraal ka qoran doona hadhow. waxaanu naqaanaa noocaas naturalistic observation. waxaa loo yaqaanaa nooc caan ah oo aynu isticmaalno oo la yidhaahdo surveys iyo interviews. surveyskii oo ah hab questionnaire ah ama su-aalo qofkii weydiinaya isagoo qofkii aynu researchka ku sameynayna inooga jawaabay su-aalahaas. noociisa kalena waxaa la yidhahdaa waa interviews, in qofkii uu soo fadhiisto oo kadib wax interview aynu ka qaadno ama su-aalo aynu weydiino isagoo hadal ah markaa ama waan record garaynaa isagoo qofka consentkiisa mar walba dee la weydiinayo, which is very important in research. ama waxaynu qoraynaa notes ama notes baynu ka qaadanaynaa. taa markaynu kasoo gudubno waxaa loo yaqaano waxaa jira correlation. correlationku wuxuu baaraa isagu cause and effect relationship ama xiriirka ka dhexeeya waxaan wax saameynaya iyo waxa la saameynayo. isagoo markaa sheegeen haddii imika aynu eegno coffeegu wuxuu cognitionka ayuu kordhiyaa ama habfikirkuu kordhiyaa. marka waxaynu eegaynaa xiriirka labadan ka dhexeeya ee ma eegayno ma koos garaya mise ma koos garanayo. haddii uu xiriir ka dhexeeyo waxaan odhanaa yes xiriir baa ka dhexeeya. haddaanu xiriir ka dhexeyn waxaynu odhanaa xiriir kama dhexeeyo. laakiin haddaynu doonayno inaan kooskii eegno waxaynu u gudbaynaa researchka kale ee loo yaqaano experimentation oo iyadu ah in experiment ama lagu baaro qofkii inagoo controlina. experimental group waxaynu siinaa coffee anagoo markaas siinaynaa hal xidhaale ooynu eegno inteeyo second ay hal xidhaalahaas ku xalin karayaan. group control group baa jira isaguna oo ah groupkeen ka deynna kafeega inagoo isagana eegina hal xidhaalaha intuu ku xalin karaya. noocaasoo kale waxaa loo yaqaanaa experimentation ama experimentation research method baa loo yaqaanaa. haddaba researchkan aynu ka sheekeynno dhan yaynu ka qaadaynaa.
waxaynu kusoo dooranaa dadkaynu ka qaadano habka loo yaqaano random oo maaha hadda maanta aanu deeq ahaan aan research sameynayo inaanu saaxiibkay ama saaxiibadday aan soo kaxaysanayo researchka ku sameynayo laakiin waxa random sampling ah ayaa loo qaadanaya inka guud ahaan haddii researchka doonayno in ku sameyno dhalinyarada Hargeysa kaliya ku nool waxaynu eegaynaa age-kan doonaa waa age-ka haddii orano waxaynu doonaa age-ka secondary-ga ama da'da secondary-ga lagu dhigto waa inaynu ka soo qaadan karnaa dhowr school si u represent gareeyaan ama ay u matalaan dhalinyarada Soomaaliland ee secondary school ka dhigata inta waxaan ku soo koobinaa hadaba psychology sidoo uga gun gaadho aragtiyada uu soo bandhigo waxaan idin leeyahay Ramadaan Mubaarak waa inooyo fiidiyoga dambe ama xalqadeena saddexaad. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.